السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك دمان وحين كجرا بالبركيسن ورمضان وحين كفرحسن هاي صوم كاين صومينو sababtoo ah ilaahay tabaaraka wa tacaala wuu inagu dambi dhaafayaa jannadiisa iyo raalli ahaanshihiisana waynu ku helaynaa waxa kale ku faraxsanahay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu naga dhigay dad iimaan leh oo iimaan ayuuna siiyey ummad muslima ayaynu nahay ikhwaani iimaanku waxa weeyaan shayga ugu qaalisan ee allah tabaaraka wa tacaala uu cid u jecel yahay siiyo ilaahay ayaa markaasina jecel taasaana farxad inoogu filan waxa iyaduna su'aala adduunka murug miyay ka jirtaa haa way ka jirtaa adduunka intaad joogto murug iyo farxad labadaba waad la kulmaysaa laakiin markaad murug la kulanto maaha inaad isu wada dhiibto ood qof isdhiibay noqoto laakiin ma taqaanaa dariiqa koobaad amba albaabka laga galo farxaddu ku yahay waa iimaankaaga haddaad xoojiso farxaddaaduna way kordhaysaa mar kastaad iimaankaaga xoojiso farxaddaaduna way sii kordhaysaa way laba jibaarmaysaa mar kastoo iimaankaaga hoos u dhacana farxaddaadii ayaa hoos u soconaysa oo ilaa ay gaadho heerka ugu hooseeya ilaahay inaguma keeno tabaarakahu wa tacaala albaabka farxadda markaad soo gasho waa inaad ka shaqaysaa awaamirtii ilaahay ku faray wax alla ilaahay wuxuu ku faray in alla intaad awooddo waa inaad la timaadid waxyaabahu ilaahay kaa reebayna dhammaantood waa inaad ka tagto eeg waa laynoo fududeeyey waxaa layna yidhi waxa laydin amray waxaad la timaadaan intaad awoodaan laakiin waxaa laydinka nahiyey dhammaantood ka taga qiso cajiiba ayaa waxaan mar ka dhageystay sheekh mustafa ismaaciil haaruun allaha xafido sheekheena ayaa wuxuu ka sheekeynayay farxadda iyo waxyaabaha ku saabsan iyo gaaliya islaamku siday farxadda ugu kala dhow yihiin nin kaalaba wuxuu yidhi gabadh buu qabay gabadhii ayaa maalintii dambe iyadoo faraxsan buu guriga ugu soo galay deetana wuxuu yidhi maantay faraxsan tahay walla wayna qoorta ka gooyaa sida iyadoo faraxsan adduunkan ay uga tagto micnaha shakhsigani wuxuu niyadda ku hayay farxad inaan laba heli karin haddii la helana hal mar ay tahay halkaa mar qofka farxana ee fiicanta inuu adduunka ka tago waxaynu tilmaami doonaa insha allahu tacaala ilaa 5 qodob oo aynu aad iyo aad muhiim ugu nahay aynu u baahan nahay 5 qodob waa 5 qodob oo biyo kama dhibcaana oo qofka raaca run ahaantii uu aad iyo aad ugu guulaysanayo inuu noloshiisa soo gacanta u ku dhigo nambarka koobaad waa iimaanka ilaahay ku siiyey xooji waynaad awoodiisa aad kor u qaadaa mar kasta oo iimaankaagu noqdaa mid kor u kacaya mar walba wanaan iimaankaagu noqon iimaan daciifaya oo hoos u socda laakiin waa inuu noqdaa mar walba iimaan kor sida qofku iimaankiisa u kobcinayo uu u kordhinayo waxaa ka mid ah inuu dadka wanaagga u sheego oo qof kasta uu wanaagga u sheego si naxariis ku jirto oo qofkuna dhageysan karo waa inuu ugu sheego si yaro dabaxsan oo wanaagsan uu ka soo shaqeeyey oo hadalka ka soo baxaya uu u fiirsaday oo inuu qofka ugu sheego hadalka wanaagsan marka adiga waxa ku saameynaya hadalka wanaagsan ee qofka u sheegayso adiga ayuu ku saameynayaa oo naftaadii ayaa ku islaaxaysa khushuucdaadii xagga iimaankuna aad bay u fara badanaysaa allah tabaaraka wa tacaala qur'aankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آيات الإله وحين تصيان وإلهي نقوى رمي تبارك وتعالى ويرد إنك صوب حيسين نقطة توغن أو توصن أو برتي لغو تلك لي أباريسا أو قفكي نسوتشي دانيسا إلهي تبارك وتعالى نقول نيا قضب كاللبادين نقطرين وحيهي kun naafican waxaad ahaataa qof waxtar leh oo dadka waxtara oo markuu maqan yahay la tago markuu joogana lagu xisaabtamo waa inaad noqotaa qof dadka caawinaya dadka ilaahay wax kasta aad aragtid oo nool oo dhaqaaqa oo u baahan in loo gargaaro amba la caawiyo waa inaad caawiso qof baahan baad aragtay qof si kale oo dhibaataysan baad aragtay waxaad aragtay qof alaab culus sida waad la qaadaysaa waxaad aragtay qof mushkilada haysato intaad kala qaban kartaad kala qabanaysaa waxaad noqonaysaa naafican qof waxtara waxaanad noqonaysaa qof ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala laga jecel yahay xayawaanka bini aadanka wax kastaad aragtid oo u baahan inay caawimo helaan adiguna aad markaa awoodaysid inaad caawiso waa inaad caawiso
ha ka xaragoonin qofka miskiinka ee taagan dariiqa, ha ka xaragoonin qof da'a oo waddo ka tilaabaya oo aad gacanta qabataa waddada ka tilaabisid, ha ka xaragoonin qof alaab culus sida oo alaabtii la qaado. Waxyaabahaasoo dhan waxyaabahay dadku iska kibriyaan. Dadka ducafada iyo qofka taajirka wax haysteed oo Ilaahay wax siiyey intu waa inay ku sinaadaan, waa inaad dadka isku si aad ula macaamisho. Nabi Muxammad sallallahu calayhi wasallam waxa uu leeyahay axabu nnaasi ila Allahi anfacahum linnaas. Ilaahay xaggiisa waxa loogu jecel yahay dadka wax tara, ee dadka caawiya, ee dadka manfacooda ay wax ka arkaan. Laakiin hal qodob ayaa muhiima oo dadka intooda badan aad moodo inaanay ku baraarugsanayn. Halkaa qodobna wuxuu yahay dadka waxay Ilaahay dartiisa markay qofka wax u caawinayaan, qofkii in la kashifo oo baraha bulshada la keeno oo isagoo video laga duubo aanu raalli ka ahayn oo adduunka lagu baahiyo, qofkii wuxuu dareemayaa ciriiri fara badan, mana laha awood uu ku yidhaahdo kamarada yaan layga duubin. Marka qofku wuxuu weyn siro akhlaaq leh oo fiican waxaad bixinayso Ilaahay dartii, qofka waa inaad siiso. Sadaqada la muujinayo ee iyadu caamka ah iyadu waa caadi oo iyadu wax ceeba ma leh, waayo waxa loogu talagalay inay dadku isa soo eegtaan oo qofku marka qof bixiyo qof kalena ku daydo ayaa loogu talagalay. Caawimadaad bixinaysaa siday doonto ha ahaato, waa inay adiga kuu gaar ahaato marka koowaad, markay arrimo caama tahayna waa inay caamka ay ka dhex muuqato si loogu soo daydo. Kun mutamassiman, qodobkeena saddexaad waxa weeyaan kun mutamassiman, waxaad ahaataa qof dhoolla caddayn badan oo weji furfuran oo dadka soo dhaweeya oo dadka afka u taagin. Marka qofka waa inaad weji wanaagsan aad ku qaabisho. Tusaale ahaan Soomaalideena waxay ku yaxan yihiin waxyaabo fara badan. Waxyaabaha waxaa ka mid ah qofkii eedan muddo isarag aydan bila isarag ayaa maalin meesha qofkii meel buu kaga hor imanaya, qofkii laga yaabo inuu xanaaqsan yahay, qofkii laga yaabo in reerkiisa ku soo dhaceen, qofkii laga yaabo mushkilada kale oo adduun inay haystaan, ayuu ku bilaabayaa feed amba laad amba riixid amba tuurtuurid waxyaabo fara badan aan raalli ka ahayn. Laakiin isma oga inuu bad ku jiro oo ninkan baanu hebelku yaqaanay ahayn oo laga soo xanaajiyey oo jawigiisu bedelan yahay. Isaguna waxa laga yaabaa inuu gacan qaado, labadii qof inay bartaa isku dilaan ayaaba dhici karta oo ninkana u qaadan waayo siduu saaxiibka kula dagaalamay, kana uu u qaadan waayo adigoo murugaysan oo hamiga adduunka oo dhan dusha ka saaran yahay, sideebuu ku gujiyaan buu ku laadlaada uu yiraahdo. Marka adigu hadafkaad raadinaysaa u socota wuxuu ahaa mutamassiman, inaad dhoolla caddayn meesha ka heshid oo isu dhoolla caddaysaan ayay ahayd. Laakiin maxaa qofkii ku kala baydheen idinkoo xanaaqsan oo si kala jeeda ayaa laga yaabaa inaad kala noqotaan. Marka taas waa inaad iska ilaalisid, dhoolla caddee, dadka soo dhawee, kuna dadaal inaad ahaato mid weji furfuran. Adigu kumaad soo talagelin inaad saaxiibka dhibaatayso, laakiin waxaad ku soo talagashay inaad saaxiibka la ciyaarto sidii awalba u faraka ciyaari jirteen amba wada qosli jirteen, laakiin isaga xaalad kale ku jira. Almuhim waxa weeyaan hubi qofkan inuu jawigiisu degan yahay. Qofka ha ka nixinin, waa inaad qofka tustaa wax wanaagsan, waa inaad ku tiraahdaa marad qofkiis ka soo horbaxdaan idinkoo muddo kala maqnaa oo kale, waa inaad ku tiraahdo waad qurux badan tahay, waad qurux badatay, waad naaxday, beryahan waa lagaa kala tegay. Af Soomaaliga cusub ee dhalinyaradu aad ka wadeegsadaan. Haddaad laakiin qofkii markaa ku bilowdo war waadigan xumaaday, bidaar baa ku gashay, madaxaaga wada cirro, warni maxaa kugu dhacay, meeshan baasaad ka dhacday waa maxay, waa lagaa carraya marka lagu arko. Qofkii muxuu sameynayaa? Qofkii wuxuu ka bixinayaa reaction aad iyo aad u foolxun. Waxa laga yaabaa qofkaasi inuu niyad ahaan ku naco isagoon sida kale ku nicin, haddana niyadiisu inay ka niyad jabsantay baa laga yaabaa. Adiguna aad is leedahay waa caynkiisii. Walaalayaal, qodobka afraad waxa weeyaan kun saadiqan, waxaad ahaataa run sheege. Qof run sheega oo hadalkiisa run ka sheega, hadalku odhanayo qofka ugu sheekaynayo, hadalkaagaas waa inuu hadal runa noqdaa. Hadduu hadalkaagaasi been noqdo oo dadka dhexdiisa beenlow aad ka noqoto, sharaf ma lihid adduun iyo aakhiro. Weedha kaa soo baxaysa, hadalkaad odhanayso, waxaad qofkan waxa laga yaabaa qof dhami hadalkan aad leedahay go'aankiisu inuu isku bedelo. Waxa laga yaabaa adigoo been sheegayo ciyaar ciyaar ay kula tahay
inaad wax baabi'iso. Laba qofoon shaqo bay isku lahayn baa laga yaabaa weedha aad tiri ee beenta daraaddeed inay iskaga hor yimaadaan. Waxaa laga yaabaa waxyaabo fara badan aad filaynin inay adiga kaaga yimaadaan. Xumaanta uu leeyahay qofka beenta sheega wuu kula ballamayaa, wuu kaaga baxayaa, waad aaminaysaa, wuu ku khiyaamayaa. Wax fara badan baa isku ogaanaysaan, waxba kama jiraan buu ka soo qaadayaa. Markaas qofka beenlowgii ilaahay iyo aakhiro iyo adduun toona kuma wanaagsana. Waa shay aad iyo aad u xaaraam ah in la iska ilaaliyaana ay aad iyo aad u habboon tahay. Dadka qaar way ku dhaartaan, Ilaaha waaxidka ayay ku dhaartaan ayagoo been haddana sheegaya. Qofkani beentan wuu wadayaa xataa yuktaba cinda Allaahi kadaab. Qofkani runtan wuu wadayaa xataa yuktaba cinda Allaahi sidiiq. Ilaa xagga Ilaahay qofka laga odhanayo waa beenaale, qofkii beenta sheegi jiray. Qofka runta sheegana ilaa xagga Ilaahay laga odhanayo qofkani waa qofkii runta badnaa. Qodobka ugu dambeeya shanaad, kun daliilan, waxaad ahaataa qof lagu daydo oo dadka daliilo ah oo wanaagga lagaga daydo. Yihiin cidda kugu dayanaysaa awalan waa familygaaga. Reerkaaga waa inay kugu daydaan, carruurtaada waa inay kugu dayato, walaaladaa waa inay kugu daydaan, ilma adeeradaa waa inay kugu daydaan, eedooyinkaa waa inay kugu daydaan, abtiyaashaa waa inay kugu daydaan. Qof wanaagsan oo lagu daydo waa inaad noqotid, oo lagu wada daydo oo familgu tusaale u soo qaato adigoo Ilaahay dartiina ay kaa tahay tabaarakahu wa tacaala.